Asalaamu calaykum. Wax ka baro magaalada 834 sano ka hor xinka loo dhisay Lalibela. Sanadku markuu ahaa 1187 ayuu maqlay boqorkii la odhan jiray Gabre Masqal oo ahaa boqorkii Itoobiya ee berigaas inay muslimiintu qabsadeen magaalada barakeysan ee Qudus oo ah magaalo diimaha Islaamka, Yahuudda iyo Masiixiyiintu ay aaminsan yihiin inay tahay dhul barakeysan oo ku taalla dalka Falastiin. Ayaa bilaabay inuu dhiso meel ay ku xajiyaan Masiixiyiinta Itoobiya si ay u gutaan mid ka mid ah waajibaadkooda waa sida ay sheegaan. Wuxuuna bilaabay dhismo qaab ahaan shabaha magaalada Qudus oo ka kooban 11 dhismo oo badankoodu dhulka hoostiisa ay ka dhisan yihiin si ay u matalaan magaalada Qudus ee barakeysan oo 1187 ay qabsadeen ciidamada muslimiinta uu hogaaminayay Salaaxaddiin al-Ayyuubi. Waxaana ka mid ah dhismaha ay ugu yeedhaan Beytlehem ama Beytlaxam. Waa magaalo ka mid ah Qudus, waana meesha la sheegay inuu ku dhashay Nebi Ciise calayhi salaam. Waxaa kale oo magaalada Lalibela dhexmara webiga ama togga la yidhaahdo webiga Urdun ama Jordan River, kaasoo laga soo minguuriyay webiga Urdun ee kala badha dalalka Falastiin iyo Urdun. Wuxuuna boqorku amray in wax kasta oo magaalada Qudus ku yaalla laga dhiso magaalada Lalibela, waana laga dhisay. Sanadku markii uu ahaa 1531 ayaa la sheegay in ciidamada Imaam Axmed Gurey uu hogaaminayay oo qorshahoodu ahaa inay burburiyaan amase ay gubaan magaalada Lalibela, balse dadka deegaanka ayaa marin habaabiyay ciidamadii Axmed Gurey waxayna gubeen ciidanka imaamku kiniisad kale oo 16 kiiloomitir u jirta oo la odhan jiray Gannat Maryam. Kiniisaddan Lalibela waxaa la dhisay qarnigii 12aad ee taariikhda miilaadiga. Aad baad u mahadsantihiin. Aqoon wadaag page-kaas ayaad isagoo qoraal ka helaysaan.